قلعة ميديا قلعة ميديا نيوز قلعة ميديا نيوز قلعة ميديا نيوز بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعaan wanaagsan ku soo dhawaada daawadayaal warka galcad media qodobada ku daawad doontaan waxa ugu dooran gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Shabeellada Dhexe iyo wiil oo dhalo lagu dilay Jowhar sargaal shabaab hore uga tirsanaan jiray oo Kismaayo lagu dilay al-shabaab sheegtay in weerarkii xalana ay ku dileen tobaneeyaha ajnabi ah Salaad Cali Jeelo oo weerar caadi ah ku qaaday rag ehelkiisa ah سعيدني وبلابي حرحريتانka dad isay ka soo horjeeda dhexdhexaadin laga dhex bilaabay Sacuudiga iyo Iran biyo boqolaal qaraabada xubnaha ka tirsan Daesh oo ka baxsaday xiro weyn ku taala Syria hagaagadi aan ugu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta oo aan channelkan soo gelina taariikhda waxay tahay 14 Oktoobar 2019 intii aad maqasheen oo faahfaahsan ku soo dhawaada saaxiibayaal قلعة ميديا قلعة ميديا نيوز قلعة ميديا نيوز قلعة ميديا نيوز wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa sheegay in weerar bambaano lagu qaaday xalay guriga uu Jowhar ka degan yahay gudoomiyihii amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Shabeellada Dhexe oo ka dhashay khasaare dhimasho qarax oo jugtiisa laga maqlay dhamaan xaafadaha ay ka kooban tahay Jowhar ayaa waxa uu ka dhacay xaafadda Hanti Wadaag guriga halkaasi ka deganaa Maxamuud Cabdi Sugaal oo ahaa gudoomiye ku xigeenkii amniga gobolka Shabeellada Dhexe weerarkan ayaa waxa ku dhintay Allah u naxariistay Maxamuud Cabdi Sugaal oo ahaa gudoomiye ku xigeenkii dhanka amniga maamulka gobolka Shabeellada Dhexe dowlad goboleedka Hirshabelle iyo wiil oo dhalay xilligaasi guriga ku wada sugnaa gudoomiyaha dhintay ayaa la sheegay inuusan haysan wax ilaalo ah oo sugayday amnigiisa kooxdii weerarkan fulisay ayaa durba goobta iskaga carartay lama oga cidda ka dambeysay weerarkan waxaase guriga gudoomiyaha booqday mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada iyo kan gobolka Shabeellada Dhexe waa gudoomiye ku xigeenkii labaad ee maamulka gobolka Shabeellada Dhexe lagu dilay weerar muddo bil gudaheed ah dhawaan ayay markii miino wadada dhinaceeda la dhigay lagu dilay Allah u naxariistay gudoomiyihii maaliyadda gobolkaas oo xilligaasi ku safrayay wadada u dhaxaysa degmooyinka Balcad iyo Jowhar ee gobolkaasi ciidamada ayaa baaritaan guriguri ay ugu baarayeen xalay waxay ka sameeyeen xaafadda uu falkani ka dhacay howlgalladaasi ayaana lagu soo qabtay sida wararku sheegayaan dad dhalinyaro u badan guriga gudoomiyaha ka deganaa magaalada ayaa ku yaala meel ka baxsan magaalada gaar ahaan xaafadda ugu dambeysa xaafadda Hanti Wadaag oo ka mid ah xaafadaha ay ka kooban tahay Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe ammaanka magaalada Jowhar ayaa aad u sii xumaanaya iyadoo xusid mudan tahay in Jowhar ay ka mid ahaan jirtay magaalooyinka ugu amniga fiican koonfurta Soomaaliya markaana haddii aan fiirino Kismaayo koox ku hubeysan bastoolada ayaa xalay magaalada Kismaayo waxay ku dileen sargaal hore uga tirsanaa jiray saraakiisha sare ee dagaalamayaasha shabaab dilka waxaa fuliyay dhalinyaro gaaraysa 2 ruux oo marxuumka rasaasta kala dhacay qaybihiisa sare jirkiisa marxuumkan ayaa lagu magacaabi jiray Maxamed Cumar wuxuuna markaa soo mid noqday dagaalamayaasha shabaab inkastoo isku dhiibay ciidamada maamulka Jubbaland dhinaca kale marxuumkan ayaa warar soo baxay waxay sheegayaan inuu macalinka ahaa iskuulada ku yaala magaalada Kismaayo dilka kadib waxaa goobta iskaga baxsatay ragii ka dambeeyay dilkan madaxweynaha maamulka Puntland ayaa tallaabo ka qaaday beelihii kacdoonka dhawaan ka sameeyay gobolka Bari madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa qaaday tallaabadii ugu horeysay ka dhan ah dadkii ku lugta lahaa kacdoon ka dhan ah maamulkaas ay ka wadeen qaar ka mid ah beelaha dega gobolka Bari gaar ahaan magaalada Boosaaso ciidamo ka tirsan kuwa amniga maamulka Puntland ayaa magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari xabsi ku yaala ku xiray siyaasi Muuse Cali Jaamac oo ka mid ah siyaasiyiinta ugu caansan gobolkaasi iyo deegaanada Puntland iyo xubno kale oo siyaasiyiin ah siyaasigan ayaa maalmo ka hor magaalada Boosaaso uga qayb galay shir ay yeesheen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta gobolka Bari kaasi oo laga soo saaray war murtiyad qodobaysan oo si adag loogu dhaliilay hanaanka ay wax u hogaaminayso xukuumadda Puntland ee talada haysa amarka lagu bixiyay siyaasi Muuse Jaamac ayaa waxa la sheegay inuu bixiyay wasiirka amniga dowlad goboleedka Puntland Cabdisamed Maxamed Galan isla markaana haatan uu ku xiran yahay xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso Cabdisamed ayaa ka mid ah siyaasiyiinta xilalka ka haysa xukuumadda Deni
oo ka soo jeeda gobolka bari. faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxaya weerar hoobiyaal oo ay shabaab ay ku qaadeen xirada ugu weyn ciidamada Amisom, qaramada midoobay, hay'adaha shisheeye ee ka howlgala gudaha Muqdisho iyo safaaradaha qaar ee wadamada caalamka ee xalane. hoobiyaasha oo ku dhacay xiradaasi ayaa tiro ahaan lagu qiyaasay ilaa 4 hoobiye. ila ku sugan xirada xalane ayaa inoo sheegay in hoobiyaashaas ay ku dhaawacmeen ugu yaraan dad gaaraya 7 qof. 4 ka mid ah yihiin ciidamada Midowga Afrika, 2 kale ay yihiin shaqaalaha ka shaqeeya xiradaasi oo Soomaali ah, iyo 1 qof oo ka mid ah sida la sheegay shaqaalaha beesha caalamka. Al-Shabaab oo war ka soo saartay hoobiyahan lagu garaacay xalane shalay ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi. Al-Shabaab ayaa baraa warkooda lagu faafiyo waxa ay ku qoreen hoobiyaasha xalano lagu garaacay ay ku dileen 7 qof oo ajnabi ah, 5 kalena ay ku dhaawacmeen hoobiyaashii ay ku qaadeen xalane. Al-Shabaab ayaa sheegtay in ciidamadooda sida gaarka u tababaran ay weerarkaasi ka dambeeyeen. dhinaca kale war qoraal oo ka soo baxay ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, James Swan ayaa si kulul waxa uga hadlay hoobiyaashii lagu weeraray xarunta uu Muqdisho ka degan yahay xalane. James Swan ayaa caafimaad degdeg ah u rajeeyay shaqaalihii ka howlgeliyay xiradaasi. lama oga halka dhabta ay laga soo tuuray hoobiyaashan, balse dhowr mar ayaa meelo ay ka mid tahay xalane iyo madaxtooyada lagu weeraray hoobiyaal aan la aqoon meel laga soo tuuray, kuwa uu dhaliyay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac. Salaad Cali Jeelo oo ka mid ah siyaasiyiinta iyo odayaasha beesha Abgaal ayaa weerar culus ku qaaday siyaasiyiintii iyo madaxdii hore ee dalka u soo maray ee ka qaybgalay xafladii caleemasaarka madaxweynaha dib loo doortay ee Jubbaland Axmed Madoobe, balse doorashadii ku soo baxay ay dowladda Soomaaliya iska diiday. dadka ka qaybgalay caleemasaarka Axmed Madoobe Salaad Cali Jeelo uu tiriyay waxaa ka mid ah Sheekh Shariif Sheekh Axmed, Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynayaashii hore ee maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed Cabdikariin Xuseen Guuleed, Shariif Xasan Sheekh Ahdan, xogaamiyaha xisbiga mucaaradka Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur, madaxweynaha Puntland Siciid Dani, xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya kuwa uu tiradooda lagu qiyaasay 100 mudane. Salaad Cali Jeelo ayaa madaxdii iyo siyaasiyiintii ka qayb gashay xafladda caleemasaarka Axmed Madoobe ku tilmaamay inay yihiin kuwa u shaqeynaya wadamo shisheeye oo loo adeegsanayo niyad jebinta dowladda Soomaaliya. Salaad Cali Jeelo ayaa siyaasiyiintan iyo madaxdii ka qayb gashay xafladdaas u kala qaybiyay 2 qaybood. qaar ka tirsan kuwaas ayuu sheegay inay yihiin kuwa hore ugu fashilmay xukunka oo dalka meel halis ah ka riday, isla markaana hadda doonaya inay xukunka ku soo noqdaan. qaybta labaad ayuu Salaad Cali Jeelo ku sheegay inay yihiin kuwa dalaaliin ah oo siyaasadda ugu jira inay lacag ka abuuraan, isla markaana ay ganacsi ka raadiyaan la dagaalanka xukuumadda. Salaad Cali Jeelo ayaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay siyaasiyiinta ku xiran filla Soomaaliya ee bil kasta lacagta ka qaada dowladda si ay ugu difaacaan siyaasiyiinta mucaaradka ah. dhexdhexaadan ayaa laga dhex bilaabay Sacuudiga iyo Iiraan. Ra'iisul Wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa booqanaya dalka dariska la ah ee Iiraan. Ra'iisul Wasaare Khan ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay inuu dhexdhexaadiyo garwadeena ka noqdo wadahadallada dhex mari doona Iiraan iyo Sacuudiga. xilli shir jiraa'id si wadajir ah u qabteen magaalada Tehran, madaxweyne Ruuxaani waxa uu sheegay in Pakistan aysan doonayn in ay aragto dagaal dhex mara Iiraan iyo Sacuudiga. Khan ayaa isku dayay inuu dejiyo xiisadda gobolka gacanka oo muddooyinkii u dambeeyay cirka isku shareerisay. saraakiisha dalka Pakistan waxay sheegeen inuu la kulmi doono hogaamiyaha ruuxiga ah Iiraan Ayatollah Ali Khamenei iyo madaxweyne Xasan Ruuxaani. Ra'iisul Wasaaraha dalka Pakistan ayaa sheegay bishii aan soo dhaafnay in Mareykanka uu ka codsaday inuu dhexdhexaadiyo ka noqdo khilaafka Sacuudiga iyo Iiraan. ugu dambeyntii boqolaal qaraabada xubno ka tirsan Daacish ayaa ka baxsaday xiro ku taala Syria. boqolaal ajnabi ah oo la xiriirinayo kooxdii la baxday dowladda Islaamka ee ISIS ayaa ka baxsaday xiro ku taala waqooyiga Syria xilli uu halkaasi ka socdo howlgal ay wadaan militariga Turkiga, waxaana sidaas sheegay saraakiisha Kurdiyiinta. saraakiishu sheegay in dadka xiradaasi ku jiray xoog ku soo jeereen albaabka xirada xilli goob xirada u dhow uu dagaal ka socday. Turkiga ayaa duulaan ku qaaday waqooyiga Syria oo ay ku sugan yihiin xogaga Kurdiyiinta. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay inay guryahooda ka qaxeen, isla markaana laga yaabay in tirada ay sare u sii kacdo. dowladda Turkiga ayaa ku eedeysay in Kurdiyiinta ay yihiin koox argagixiso, isla markaana ay Turkiga doonayaan inay sameeyaan goob ammaan ah oo ka dhan ah 30 kiiloomitir gudaha Syria.
go-aanka madaxweyne Donald Trump ee ciidamadiisu kaga saaray Suuriya ayuu wuxuu horseeday in Turkiga ay qaadaan tallaabo militari. Xoogga Kurdiyiinta iyo YPG ayaa ka samaystay bariga webiga Furuud ee waqooyiga Suuriya dhul maamulkiisu uu madax bannaan yihiin. daawadayaal waa naga intaa warkaad kala socoteen Galcad Media. haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelka Galcad Media. Galcad Media News. Galcad Media News. Galcad Media News.